kulanti wacan daawadayaal idilhaantiin meel walba caalamka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena wararka isha sirdoonka qodobadaan maanta ku eegi doonana waxaa kamid ah sugnaanshaha wararka sheegaya in ciidamada Soomaaliya ay ka dagaalamayaan gudaha dalka Liibiya si ay u caawiyaan kuwa Turkiga iyo kuwa dawladda la aqoonsan yahay ee Liibiya qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan u diyaar garooba barnaamijka waxaa dhawaan la isla dhexmarayay in Soomaaliya ay ciidamo u dirayso dalka Liibiya si ay u caawiyaan kuwa Turkiga iyo kuwa dawladda la aqoonsan yahay ee Liibiya xaaladda Liibiya ayaa sii xumaanaysa iyadoo dawladaha awoodda ugu badan ay ku dul dagaalamayaan dalka Liibiya waxaana ugu dambeeyay kuwa Turkiga iyo Masar Turkigu waxa uu taageerayaa dawladda qaramada midooba aqoonsan tahay ee fadhigeedu yahay caasimadda Tripoli halka Masar Faransiiska Imaaraadka Sacuudi Carabiya iyo dawlado kalena ay taageerayaan hogaamiyaha afgambidoonka ah ee Khalifa Haftar baarlamaanka dalka Masar ayaa shalay isku raacay oo meel mariyay qaraar ciidamada military ee dalkooda ay gudaha ugu gali karaan Liibiya iyaga oo taageeraya qabaa'ilka degan xuduudda dhanka Liibiya dawlado ay ka mid yihiin dawladda Algeria oo daris la Liibiya ayaa ka digtay dhibaatada ka dhalan karta in hub la siiyo qabiilo iska soo horjeeda taas oo uu sheegay in ay abuuri karto Soomaaliyada cusub taas oo muujinaysa madaxweynaha Algeria inuu ugu gafayo Soomaaliya ama uu tusaale xun u soo qaatay haddaba waxaa jira bogagga internet ah oo lagu qoray in dawladda federaalka Soomaaliya ay ciidamo u dirayso Liibiya kuwaas oo gacan ka geysanaya xasilinta dalkaasi Liibiya wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Danjire Axmed Ciise Cawad ayaa beeniyay in arintaasi ay jirto waxa uu yiri ma jiraan ciidan aan u dirayno Liibiya ciidamada Soomaaliya ma ahan calooshood u shaqeystayaal sida ciidamada kale ee la sheegayay marka annaga ma haysano calooshood u shaqeystayaal ayaa uu yiri wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad waxa uu inta raaciyay hadalkiisa Danjire Axmed Ciise Cawad wararka meelaha lagu qorayo ee dacayada ah waa waxba kama jiraan waxa wasiir Cawad beeniyay hadal ahaa in dawladda Soomaaliya iyo Turkigu ay ka wada hadlayaan sidii ay ciidamo wada jir ah ugu diri lahaayeen Liibiya dhanka kale waxaa jira madax ka digaysa in Liibiya ay u burburto sida Soomaaliya ayna colaad xun ka dhacdo hubaynta qabiilada Liibiya waxa ay sababaysaa Soomaaliyada cusub madaxweynaha dalka Algeria Abdulmajid Tebboune ayaa sheegay in uu ka xun yahay in la hubeeyo qabaa'ilada Liibiya sida ay qorayaan qaar ka mid ah warbaahinta Carabta waxa uu madaxweynuhu sheegay in arintaasi ay sii xumeyn doonto xaaladda Liibiya ayna abuuri doonto mid la mid ah dhibaatada Soomaaliya sida lagu qoray warbaahinta Middle East Monitoring madaxweyne Abdulmajid Tebboune ayaa sheegay in dalkiisa uu haayo xal fiican oo laga soo afjarayo qalalaasaha Liibiya qorshahaasi waxa aqbalay qaramada midoobay waxaana la gudbin doonaa iyada oo lala shaqeynayo Tunisia ayaa uu yiri hadalkaasi waxa uu madaxweynaha ka sheegay waraysi uu siiyay warbaahinta gudaha Algeria sida ay qortay wakaaladda wararka Anadolu ee dalka Turkiga madaxweynaha dalka Algeria ayaana sheegay in dalkiisa uu diidan yahay in hub la siiyo qabaa'ilada Liibiya isaga oo yiri waxaan maqlayay maalintii la soo dhaafay in hub la siinayo qabaa'ilka Liibiya si ay isugu difaacaan tallaabadaasina waa halis waxaan arki doonaa Soomaaliya cusub oo aan xal loo heli doonin ayaa uu yiri madaxweynaha dalka Algeria oo hadalkiisa ku celiyay sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Algeria Saabir ayaa muujiyay sida dalkiisa ay uga go'an tahay sidii xal waara loogu gaari lahaa qalalaasaha Liibiya iyadoo loo marayo wada hadal lana dhowrayo madax banaanida iyo sharafta dalka Liibiya in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo celiyo xasiloonida Liibiya iyadoo shacabka Liibiya ay u madax banaan yihiin go'aanadooda madax banaanida iyo kala dambeynta Liibiya shacabka Liibiya loo madax banaanaysiyo si dhaqso ah loo soo celiyo balse su'aasha isweydiiska mudan ayaa waxay tahay Turkiga iyo Masar ma ku dagaalami karaan Liibiya Fawz Al-Hamuri oo ka tirsan wargeys laga leeyahay dalka Jordan waxa uu aaminsan yahay in shacabka Liibiya aysan ka badbaadin faragelinta aan sharciga ahayn ee lagu hayo dhulkooda dhaqaalahooda amniga iyo rabitaankooda ku saabsan in xasilooni iyo nabad ay helaan lagana gudbo dhibaatada iyo colaadda gudaha dalkooda ay ka wadaan ururada la baxay khilaafada Islaamka iyo maleeshiyaadka kale ee dalkooda la geeyay maamulka dalkaasi waxa ay sheegayaan in furaha nabadda ee Liibiya aysan ahayn saliidda iyo shidaalka iyo faragelinta arrimaha gudaha ee dalkaasi lagu hayo iyo xaaladda ay wajahayaan shacabka sharciyada dawladnimo ee Liibiya baarlamaanka iyo maamulka guud oo eegaya danaha dalka waa furaha dhabta ah ee maamulada wadanka iyo ilaalinta
badqabka shacabka Liibiya ayaa uu yiri in faragelin dibadda ah lagu sameeyo Liibiya ma ahan arrin sharci ah sababtoo ah waxa ay noqon kartaa dagaal cusub oo sii xumeeya dhibaatada hadda taagan burburna u geysta dalka waxa ay taasi fursad u noqonaysaa in dibadda ka timid iyo boob loo geysto shacabka Liibiya oo haddaba u qasaara soo gaaray kana barakacay guryahooda ayaa uu yiri Al-Xamuuri wargeyska Al-Qudus Al-Carabi waxa uu dhankiisa qoray Saalax Al-Caqiili madaxa baarlamaanka dalkaasi Liibiya oo soo saaray qoraal uu ciidamada Masar kaga dalbaday in faragelin ay ku soo sameeyaan dalkiisa waxa ay warbaahinta Masar sheegeen in wafdi ka socda Benghazi ay gaareen Qaahira wafdigaasi oo ka koobnaa golaha culimada iyo qabaa'ilada qaar ka mid ah Liibiya ayaa waxa ay la kulmeen madaxweynaha kaligii taliyaha ah ee dalka Masar Abdul Fattah al-Sisi wargeyska ayaana lagu xusay in haddii qoraalka kore ujeedkiisu yahay in Masar kaalin sharci ah laga siiyo Liibiya haddaba golahaasi waxaa ka hartay 35 xubnood oo kali ah go'aankiisana ma noqonayo mid sharci ah oo loo dhan yahay waxa jira xiriir wanaagsan oo ka dhaxeeya qabaa'ilada Carabta ah ee degan labada dhinac ee xuduudda Liibiya iyo Masar balse dad badan waxa ay shaki gelinayaan kaalinta Masar ee qabaa'ilka kula heshiinayso si ciidankeeda u galaan gudaha dalka Liibiya inkastoo aysan jirin sharciyad uu haysto aqalka wakiilada ee Tobruk haddana waxa uu taagan yahay matalaada casriga ah ee Liibiya haddana madaxda waxa ay kuraasta u haystaan kaliya in si dimuqraadi ah loogu doortay balse ma ogolaan karaan in faragelin shisheeye ay sharci kaga dhigaan sida uu qoray wargeyska Al-Qudus Al-Carabi Akram Al-Qasaas oo ka tirsan wargeyska Al-Yawm Al-Sabiya oo Masar ka soo baxa ayaa sheegay in Masar ay horay u xaqiijisay in aysan ogolaanin faragelin iyo duulaan shisheeye oo lagu qaado Liibiya iyo maamulkeedaba dhaqaalaheeda iyo shacabka Liibiya intuba balse dhanka kale maleeshiyaadka ay taageereysay oo meesha ka baxaya iyo faragelinta tooska ah ee Turkiga ayaa wax ka bedelaya qariirada awoodda iyo dhaqaalaha kuwaas oo sababay si kala fogaansho Al-Qasaas waxa uu intaasi ku daray Masar waxa ay filaysaa in ay sii socon doonaan wixii dhacayay sanadihii la soo dhaafay haddana inkastoo aysan rabin faragelin iyo danahaasi waxa wali ka go'an difaaca danaheeda amniga qaranka wayna fahamsan tahay muhiimadda ay arintaasi u leedahay Liibiya haddii kooxaha taageersan Turkiga ay sii wadaan duulaanka ayna ka gudbaan qadka cas inkastoo aan la filaynin taas Masar waxa ay ku qasbanaanaysaa in ay difaacdo danaha la xiriira amnigeeda qaranka xaaladda Liibiya waxay hadda gacanta u gashay Turkiga iyo Masar oo loolamaya labada dal waxa ay kala noqdeen kuwa go'aanada u kala gaara bariga iyo galbeedka ayaa uu yiri Ubayd Al-Raqiq oo ah saxafi u dhashay dalka Liibiya waxa uu intaasi ku daray waxaan filayaa in uusan jiri doonin isku dhac military oo labada dhinac Turki iyo Masar ku dhexmara Sirta iyo Al-Jufra balse warbaahinta ayaa sii buunbuuninaysa iyaga oo doonaya in ay eegaan aragtida shacabka Liibiya iyo haddii ay aqbali karaan waxa ay u qorsheeyeen dad kale oo ajaanib ah oo faragelinaya arrimaha Liibiya waxa uu bidhaamiyay in uu aaminsan yahay Ruushka Mareykanka iyo dalal kale ay isku raaceen hadda in Sirta ay tahay magaalada dhexdhexaad ah oo ciidamada labada dhinac aysan gacanta ku haynin iyo in Xaftar uu aqbalayo in uu ka fogaado magaaladaasi isaga oo ku bedelanaya in la ogolaado in ciidankiisa ay ku sii sugnaadaan saldhigga ciidamada cirka ee Al-Jufra Xaftar waxa uu doonayaa in dib loo bilaabo dhoofinta shidaalka iyo in goobaha laga soo saaro ay ilaaliyaan askartiisa sida uu qabo saxafigan u dhashay dalka Liibiya dowladda Turkiga ayaana tan iyo markii ay taageerada u fidisay dowladda qaramada midoobay aqoonsan tahay waxa ay wajigii koowaad ee dagaalka Liibiya ka holcaya wax ka bedeshay taas oo u sahashay in ay inta badan dalka Liibiya ay gacanta ku dhigto dowladdu waa tahay daawadayaal waan filayaa in aad wax badan ka fahamteen warbixintaasi ku saabsanayd dagaalka Liibiya wixii ku soo kordha waxaad ku daawan doontaan wararkeena dambe fadlan la soco qaybaha dambe